hal fariin kooxdan argagixisada ee al-shabaab inaan fariin u diro. dabcan waa dad Soomaali ah oo qabaa'ilka iyo ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan ka dhashay. waa dad islaamnimo sheeganaya iyo muslim inay yihiin. waa dad shareecadii islaamka inay raadinayaan sheeganaya. waxaan rabaa inaan ugu baaqo inaysan carqaladayn deeqa u socda deegaamada gacantooda ku imtixaanan. fariintaas waxaan rabaa inayn gaarsiiyo. waxaan arkayay ayaan dhexdaas wiil wariyaah oo tegay jilib oo abaaro ba'an deegaamadaas ay ka jireen, ayagoo geedo cambaa hoostood fadhiya oo saxamo hilib ah iyo bariis kana Channel 4 arrintu soo duubay iska cunayo iska buduqsanayo xoolo aysan ayagu lacag ku bixin. ummad ilaahay oo baahan ay waliba filin noocaas u soo bandhigayaan niman tumankooda inta la eegayo maad kartay kamid ah. waxaan rabaa inaan ugu baaqo hadday shareeca islaam u socdaan uma socdaan haddii dhiig Soomaalinimo uu ku jiro, haddii dadnimo yar ay ku hartay, haddii dadka Soomaaliyeed oo ay xoolaha ka arursadaan oo ay maaragtay ku dhex nool yihiin ay ka naxayaan, waxaan ugu baaqayaa inay ka wareegaan deeqdaas oo aysan carqaladayn oo dadka waliba aysan qaadan, dadka ay ku socoto loo fududeeyo. annagu dadka Soomaaliyeed waa isku qaymid, kuwa gudahooda ku jira, kuwa dibaddooda ku jira, kulli waa dadka aan u gargaarin oo gargaarka la rabo in loo fidiyo. marka runtii qayb ka mid ah barakaca iyo abaarahana kooxdaas aba ka mid ah. waayo dadkii wax soo saarka lahaay oo dhan ayay markay wax soo saaraan ninkii 10 kintaal soo saara 5 ka mid annaga leeyahay xoog kuma soo bixin, ma maalgashan, beerta male, lama waraabin. ninka miskiinka 5 markuu qaato ninkii miskiinka ha qarashkii ku baxay beertaas maba awoodi karaba. 5tii kale qarashkii inuu iskaga bixiyo iyo inuu cuno iskuma keeni karo. waxay noqonaysaa marka inuu meesha ka barakaco oo dhulkiisa inta ka tago dhulka la tago. dadka qaar noocaas oo kale u barakaceen. marka nimankaas baaqaas aan u dirayaa. sanadkaana waxa la ogaanayaa war nimankaas inay gafanayaal ummadda ku nool yihiin oo ummadda dhiigooda jaq markay dhibaataysan yihiin, markay waxaystaan xoolahoodii qaadanaya, markay dhibaato dadku qabaanna inta xeero ku xiraysta